sidoo kale to barnaamijkeena ayaynu bilaabanayna markuu ugu horeyso aniga ayaa isku sharaxayo waxa la yiraahdaa Maxamed Ali waxaan deganahay dalka Germany waxaan muddo 3 sano aan ku jiray network marketing iyo forex exchange-ga waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay oo Soomaalida oo markii ugu horeysa forex soo gala sidaas daraadeed waxaa jirtay in aan shirkado kala duwan u soo shaqeeyay anigoo markaasi team weyn dhisayay anigii my partner hadirtaan maanta aan inta joogin waxaanu si wada jira u soo wada dhisnay shirkad kamid ah shirkadihii aan soo dhisnay mid kamid ah ilaa 1200 halka shirkad kalena ilaa 2000 iyo ka badan ilaa 2200 saan filayo aanu dad gaaraya soo dhisnay caawinay dadkaasoo mostly u badnaa dad ajnabi ah marka maanta cashirkeena waxa weeye qaybtii ugu horeysay markii laga soo gudbo basicada casharadii basicada waxaan filayaa shalay toole cashirkii ugu horeeyay inaan wada qaadateen balse si aan u kala ogaado in dad cusub oo shalay aan ku jirin ay meesha ku jiraan iyo daraad haddii maanta ay tahay maalintii kuugu horeysay fadlan noo soo qor hal haddii ay tahay maanta maalintii kuugu horeysay waxaan filayaa in laba qof ay hal soo qoreen oo labadaas qof oo nagu cusub yihiin so waxaan filayaa telegramkeena haddii aad sii tixraacdaan oo ku jirtaan halkaas ayaa kala soconaysaan maalinta basica maalinta advancega inkastoo aan dadka kula taliyo inay cashir walba kasoo qayb galaan si ay indhahooda usii furmado maanta waxaynu bilaabaynaa cashirkii ugu horeeyay oo qofku markuu basicadii soo dhiso uu yiraahdo maanta bal aan istijaabiyo shaqo walbana waxa u baahan tahay meel aad ku shaqaysid maanta waxaanu baranaynaa meeshii aad ku shaqayn lahaydeen iyo waxyaabo sir ah oo iyaga ku jiro meelaha ay ku jiraan qaabkii aad sitinkaaga u samaysan lahayd iyo dhammaantaas marka ugu horeyso si aan u bilaabo waxaan idinla share gareynayaa screenkayga so inta aanan idinla share gareyn waxaan filayaa dhammaantiin in aad i wada maqlaysaan marka haddii ay jirto qof aanin maqlaynin qoraal ahaan hadda ha soo qoro si aan u dareemi karo dhibaatada meesha ka jirto so waxaan filayaa cidna maysa soo qorintaas macnaheedu maxay tahay qof walba si wanaagsan buu ii maqlayaa maanta marka waxaanu bilaabaynaa trading view trading view waa maxay trading view waa qofka markuu basicadii soo fahmo meeshii uu u imaan lahaa in uu ku shaqaysto taas macnaheedu maxay tahay uu ka kala ogaan lahaa lacagta meesha ay u socoto iyo meesha ay ka timid iyo in lacagtaasi maanta qaabku u galayo ay tahay sell mise buy buu ku galaya marka wax walibana meeshuu ku ogaan karo waa trading view-ga marka maanta waxaan kaliya oon isla dulmaraynaa sidii qofka cusub uu trading view u fahmi lahaa trading view wuxuu u qormaa sidatan trading view so si maadaama cashirkaanu sharxayno muhiimadda ugu weyn waxay tahay waxaanu iska dhaadhicinaynaa inuu meesha uu ku jiraan dad weligood trading view aanan maqlin wayna ku jiri karaan wayna ku jiraanba so sidaas daraadeed trading view sida loo qoro chatka ayaan idinku soo qorayaa markaad dhowr jeer computerkiina gelisaan waxaan filayaa computerkiina uu qabsan doonaa so trading view-ga markaad saa usoo gashaan waxaad arkaysaan dhammaan website-kii trading view platformkii lagu shaqaysanayay laba qayboodba way jirtaa qofku asaga oon emailkiisa meesha gelinin ayuu
chatka ama meesha lagu fiiriyo lacagta isticmaali karaa balse wixiise uma ay safe garaysmayaan sidaas daraaddeed si ay waxaagii kuugu safe garaysmaan waxaa lagama maarmaan ah in aad akoon meesha ka samaysatid akoonka sida loo samaysanayo waa halkan ama inta qigalaysa ama inta ama Facebook yani wax un baad yani meel mid baad dooranaysaa midka aad ku sign up garaynaysa sign up haddii tahayna waa meeshan sign up haddii log in ama hore usoo samaysatayna waa meeshan so annagu marka waxaan doonaynaa inaan email ku samaysano so inaan email ku samaysano si aan email ugu samaysano sign up baan tagaynaa kadibna email baan tagaynaa halkan ugu horeyso waxaad gelinaysaan magaca markaasi trading view-ga username ahaan aad uga rabtaan in uga muuqdo meeshan ku xigtana waxaad gelinaysaan emailkiina halkan ku xigtana waxaad gelinaysaan passwordkiina so kadibna waa aqbalaysaan labadan waxaad ogolaanaysaan in aydan ahayn computer isagoo su'aalo idin weydiinaya kadibna sign up baad samaynaysaan maadaama ay jiraan dad weligood trading view aan isticmaalin waxaan isku dayaynaa dadkaasna inaan muhiimad siino si aan ay u fahmaan halkan waxaad gelinaysaan koorso waxun baa gelinaysaan 940 magacun baa gelinaysaan whatever aad rabtaan halkan waxaad gelinaysaan emailka aad doonaysaan in ay isku register garaysaan so anaga waxaanu gelinaynaa emailka shirkadda qaybta koorsada markii aad gelisid kadib waxaad imaanaysaa passwordki waxaad ka dhiganaysaa nooca aad doonaysid markaas so aniga password baan iska geliyey oo laakiinse maskaxdeedan ku haysto kadibna waxaad dooranaysaan waan aqbalay terms and conditionkooda inaad aqbashid waa ku qasban tahay haddii aad doonaysid inaad aqrisidna waa kana terms halkaas ku dhufanaysaan privacy-ga iyo cookies policy-ga yani mid walba inaad aqrisaan haddaad doonaysaan haddaydan aqbalinna ma idin samaysmaya akoonka sidoo kaleeto Robert Mihi baa leeyahay wax buu i weydiinayaa su'aal buu i weydiinayaa su'aashiisii baan uga jawaabaynaa si uu u ogaado inaan computer ahaan waxaa dhacaysa marka waxaa lagu soo dirayaa emailkaas oo aad gelaysid kadibna aad kala soconaysid meesha si aad activation u samaysid so emailkiini baan soo galnay kadibna akoonkii activation nooga dhig ayaanu niri so si aan u hubiyo ilaa intaas inaad fahanteen screenka ayaan joojinaya meesha ku joojinaya si aan u ogaado in aad ila socotaan iyo in kale haddii aad fahanteen ama intaas aad la socotaan waxaan idinka codsanayaa inaad chatka kusoo qortaan 111 haddii aad intaas fahanteen on aan hore u socon karo wow great so muhiimadeenu waxay tahay inaad adinka fahantaan muhiimadeenu waa intaas weeye so aad baad ugu mahadsantihiin so hadda marka qaybtii meeshani ayaanu ka sii wadanaynaa si aan u sii wadanana screenka ayaan inadan la wadaagayaa so halkan sawir ayaad gelin kartaan haddii aad doontaan sawirkiina so halkan waxaad gelinaysaan magaciina koowaad waxaa rabtaan baad gelinaysaan magaca markaas laydin yiraahdo so anigu waxaan gelinaynaa Gold Star Life FX on fiirinaynaa so
akoonkii waa uu noo samaysmay sidaas macnaheedu maxay tahay akoonka haddii uu noo waxaan filayaa in ay dhib tahay markii aan qof walba mood saarayo balse isku daya qofka cusub automatic buu mood u saaraya inta kale oo soo galaysana moodka hadday iska qaadaan codsi ahaan in ay mar kale isku celiyaan halkii markaad timaadaan trading viewga marka wuxuu leeyahay waxyaabo kala duwan halkan waxaad ka garan kartaan ideal dad adinkan idinla mid ah ay soo dhigeen oo waxay arkayaan ay soo dhigayaan so markii waxay arkayaan ay soo dhigaan markii waxay arkayaan ay soo dhigaan deetana haddaad doonaysaan waad fiirinaysaan haddii aydan doonayna hadda tusaale ahaan waa dadkan follow baad dhigi kartaa markii uu qofkan wax uu soo dhigo kaleeto way kuu soo dhacaysaa laakiin ogsonow dadka meeshan ku jira waa dad adiga oo kale ah macnaheeda waxa weeye in yani dad adiga oo kale ah oo aadan ogeyn maanta aqoontooda heerka ay marayso inaad kulligood follow intaad tiraadid aadan tradyadooda iska wada qaadanin so markii aad trading view soo geshid meeshaan ku shaqaysan doono charts baa la yidhahdaa charts baad ku dhufanaysaa waa bogga aynu ku shaqaysan doono trading viewga marka sida tan buu u eg yahay mid walibana waxa weeye waxaanu samayn doonaa si aad u fahantaan baynu waxaanu samayn doonaa meel walba waa dul istaagi doonaa annagoo waqtigana ilaalinayno so si adiga muhiimadda ugu weyn waxay tahay in halkan watch list baa la yidhahdaa watch listigan lacagaa kugu jiro halkan inay kugu jiraan muhiimadda ugu weyn lacagaha aad markaasi adiga danaynaysid maxaa yeelay lacag walba ma trade garayn kartid lacagaha markaasi aad jeceshahay oo aad rabtid inaad la qabsatid lacag walba waxay leedahay dabeecad gooniya si qof walba uu dabeecad gooniya uu u leeyahay marka way wanaagsan tahay lacagta aad rabtid inaad lacag ka samaysid inaad dabeecaddeeda fahantid tusaale ahaan nin iyo naag isma gursanayaan haddii dabeecaddooda marka hore isfahmin so haddii ay isla markii isgursadaan waxa laga yaabaa khilaaf inuu yimaado halkanna waa sidoo kaleeto tusaale ahaan haddii aad lacag aadan isticmaalkeeda baranin aad iska geshid khasaarad ku gaaraysaa so halkan marka waxaan soo gelinaynaa lacagaha markaasi aad soo gelinaysaa xtaas adoo daamanayo baad iska tirtiraysaa wax walba x idhaaf baad leedahay meesha cidle kuu tahay halkaas waxaad gelinaysaa marka lacagaha markaasi aad jeceshahay inaad la socotid ama mar walba aad ku celcelinaysid maxaa yeelay repetition yani muhiimadda weyn waxay tahay inaad ku celcelisaa maalin walbana ishaadu ay qabataa xayisiintoo kaleeto halkan baad cancel ka dhehaysaa wuu kusoo baxaya hide for now so lacagaha halkan baad gelinaysaa tusaale ahaan GBP USD baan ku qorayaa inter baan leeyahay lacagtii halkaas baa iga soo muuqanaysaa lacag kale fiirinaya euro USD euro USD kadibna halkaas baa soo gashanaysaa tusaale ahaan euro AUD yani lacagta adiga aad doonaysid baad halkaas soo gelinaysaa GBP AUD so lacagihii oo dhan halkaas bay noo soo galeen kulligiina waad u wada jeedaan waxaad jiri doonta adigoo lacagahan oo dhan lacagad list dheer samaystay in aad isbuucaas lacaga qaasa aad sii ilaalinaysid haddii aadan doonaynin qaybta premierga oo yani lacagta trading view lacag lagu bixiyo qaybtaas oo ku ogolaanaysa watch list kala duwan magacyo aad u samaysanaysid laakiin waxaanu ka soo qaadanaynaa in aydan doonaynin inaad lacag ku bixisaan trading view oo free nii ahaado si freegaas aad lacagti niisii tusaale 10 lacagood baa meesha idinku jirto 3 lacagood baa rabtaan isbuucaas in aad chance ka aragteen ilaalisaan calaamad baad u yeelan kartaan guduud miyaad ka dhigaysaa kalarka aad doonaysid baad ka dhigaysaa so taas macnaheedu maxay tahay isha wax lacagahan baa isbuucan jeclahay oo chance ka arkay taas waxaan kusoo gudbaynaa qaabka lacagaha sidoo kaleeto lacagta aad doonaysid meeshaas keliya maahan intana waxaad ku qori kartaa lacag alla lacagtaad doonaysid markaasi GBP card baan tusaale ahaan kusoo daraynaa GBP card inta GBP card nooguma darmayso watch listiga laakiinse wuxuu noo imaanayaa meeshan inter markaan dhahno lacagta GBP card baan u jeednaa
so lacagta GBP card waxa doonaysaa waxaan inaad iska saartid mouse-kaaga baa link click ku samaynaysaa si ay kugu soo baxdo meeshan kadibna waxa leedahay remove meeshii cilla ayay ku tahay so lacagta halkan magaceeda ayaa ka muuqdo markaas aan isticmaalayno sidoo kale halkaana magaceeda ayaa ka muuqdo oo markaas inaad midda chat ka saaran ay tahay aan ku garanayno lacagaha marka waxay leeyihiin waqtiyo kala duwan ma waxa aad rabtaa inaad fiirisid bil ma waxa doonaysaa inaad fiirisid maalin ma waxa doonaysaa inaad fiirisid week la soo dhaafay iyo weegyadii la soo dhaafay sidee ahayd bilihii la soo dhaafay sidee ahayd halkan waxaad ka dooran kartaa time frame balida waqtiga aad doonaysid charterkan in lagugu dabaqo hadda daily baa loogu dabaqay so haddii aan 1 hour ka dhigno wuu isbedelayaa sidan buu u yaraanayaa tusaale ahaan hadduu yaraado ma xuma waad weynayn kartaa waad yarayn kartaa marka aad weynaynaysidna pluskan baad taabanaysaa zoom in marka aad yaraynaysidna zoom out meeshan baad taabanaysaa waxaan fiirinayaa chatka in ay jiraan dad markaas aan la socono wax soo qorayo okay aad baad u mahadsantihiin lacagta marka inaad weynaysid haddaad doonaysid meesha laga weyneeyo iyo meesha laga yareeyo inta ayaad ka arkaysaa qaybtan hoose iyo qaybtan pluska sidaasoo tahay halkan waxaa kaaga muuqda lacagta price-ka ay marayso hadda price-ka ay marayso maxay tahay price-ka ay marayso waxa weeye 1.795 maadaama saacadii candle-ka aan dhahnay saacad baa candle walba ka dhiganaynaa halkan waxa rabtid baa ka dooran kartaa saacad baan ka dhignay candle walba saacad buu la mid yahay candle-ki waan weynayn karnaa si aan u sii aragno adiga oo halkan mouse-ka ku qabanayo deetana jiidayo haddii aad sidaas u jiidid wuu ku weynaanayaa haddii aad isku soo celisidna wuu ku yaraanayaa so lacagtan haddeertaan price-keedina waa inta sidoo kaleeto percentage-ka maanta ay dhacday oo kaleeto ama ay kacday inta ayaa ka arkaysaa percentage-ka maanta ay hoos u soo dhacday waa maanta keliya waxa weeye -0.31% lacagta meesha maraysana inta waa ka arki kartaa halkaasna waa ka arki kartaa so sidoo kaleeto waxa kala bedeli kartaa waxa ka mid ah kandaladii waxa jiro kandalo meeshan oo ku bedelmayn saacad walba laakiin saacadaha waaweyn ku bedelmayo ayna ugu talagaleen dadka lacagta bixinayo inay isticmaalaan laakiin uma baahnid candle-ka sidan baad doonaysaa haddaad doonaysid ka dhiganaysaa haddii aad doonaysid line baad ka dhiganaysaa laakiin waxaanu ku daynaynaa candlada caadiga ah hanixin aniguba markii ugu horeysay oo aan forex-kan arko waxaan diagramkan saan usoo sawiran waxaan ku iri qofkii ii sharxayay anigu engineerna miihi physics-kana jaamacad ugamaana soo bixin sidaas daraadeed waxaan sawiradan sidee baan ku fahmayaa ha cabsan buu igu yiri wax walbana waa rabitaankaaga so marka intii ligu yiri aniga adinkana waan idinku dhigi karaa lacagta marka hal deertaan kandaladana inta ka bedelan kartaan saacadana inta ka bedelan kartaan lacagtana inta aad ka arkaysaan watch listigiina inta ka arkaysaan waxa jira qalab kale oo aad u baahan tihiin inaad isticmaashaan sidoo kale qalabkaas waa istiraatiijiyo kala duwan dad baa waxay fiiriyaan support iyo resistance kaliya dad baa waxay fiiriyaan trend line kaliya dad baa yani ayaga wax u gooniya soo saartay so marka qalab walbo aad isticmaali doontid halkan bay ku jiraan listigan inta ayaanu ka bilaabaynaa meeshan waxaa ku jira mouse-kaaga sida uu u ekaanayo mouse-kayga haddeertaan marka aan meesha saaro afar gees buu yeelanayaa laakiin haddii aanan doonaynin calaamadaas baan ka dhigi karaa haddii laakiinse aan doonayo dhibic baan ka dhigi karaa midkaan doonayo laakiinse waxaa fiican aan jeclahay inaan isticmaalo kan ugu horeeyo because sababta aan u isticmaalaya waxay tahay in markaana wax cabirayo in aan ogaado so meeshan waxaa ka arkaysaan
calaamadihii lacagta meeshaad u jihaynaysid kuu sheegi lahaa calaamaduhu aad bay u tiro badan yihiin ma doonayo inaan mid idinku sharxo laakiinse inta muhiimka idiin ah baan idiin sharxayaa trendline-kan waa idiin muhiim horizontal line-kanna waa idiin muhiim kanna haddii aad doonaysaan waa horizontal line-kan oo half ah haddaad doonaysaan isagana waa idiin muhiim sababtu muhiim idinku yahay marmarka qaarkood waxaad doonaysaan keliya inaad meeshan keliya cabirataan oo idan doonin halkan inaad sii raacdaan so calaamad walba aad ku dhufatid waxay ku yeelanaysaa calaamad walba aad ku dhufatid waxay yeelanaysaa ama way yaraanaysaa ama way weyn tahay meesha ay ku xiran tahay laakiinse adiga kugu xiran tahay inaad weyneyn kartid yareyn kartid waanu isla fahanay baan filayaa intaas qaybta kanina waa trendline kana waxa weeye waa siduu u egyahay u jeedaan meeshaas kore haddii aad support resistance isticmaalaysaanna kan baad isticmaalaysaan haddii halfkeeda isticmaalaysaanna sidoo kaleeto kan baad isticmaalaysaan arrow baa jira calaamad aad ku muujin kartaan meesha lacagta aad aadaysid ayadoo arrow ahaan sawir ahaan dhehaysid okay lacagtan tusaale ahaan lacagtan maadaama support ay trendline ay u noqotay maadaama trendline ay u noqotay awil hore support u ahayd haddana trendline-ki resistance ay u noqotay calaamadii baa ku muujin kartaan lacagtan inay hoos soo aadayso so calaamadahan marka waad weyneyn kartaa waad yareyn kartaa calaamadan markaad weyneynaysid waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid halkan waxaad ka dooranaysaa color walba colorka aad jeceshahay inuu ku yeesho halkan waxaad ka dooranaysaa meesha ku xigto sida aad u weyneynaysid haddii aad rabtid inaad sidaas u sii weynaysid iyo haddaad doonaysid dhexdhexaad iyo haddaad doonaysid mid macquul ah so dadka inta badan marka waxay isticmaalaan midkan koowaad midka ku xigo so midka koowaad midka ku xigo trendline-kana sidoo kaleeto waad weyneyn kartaa waad yareyn kartaa colorkana waad bedeli kartaa sidaad jeceshahay ayaad ka dhiganaysaa waxa kaloo muhiim ah in aad fahantaan meeshaan haddeertaan caddaan bay noo noqotay caddaankaas waxaan rabaa inaan ku haysto mise waxaan rabaa caddaankaas inaan iska bedelo hadduu qofka doonayo inuu iska bedelo dad baa madow jecel anigu sidoo kaleeto madow baa inta badan isticmaalaa dad baa caddaan jecel dad baa waxay jecel yihiin laakiin adigu dooqa adigaa leh sida maadaama dooqaa leedahay waxaan ku tusayaa maanta sida aad isaga bedeli lahayd waxaad ku dhufan kartaa sittingkan calaamadaas calaamadaas so waxaan doonaya inaan saan u calaamaday laakiinse wuu qarinaya so calaamadan ayaad ku dhufanaysaan waxaan u malaynaya inaad wada arkaysaan markaad ku dhufataan halkan waxaad ka arkaysaan dhammaan waxaad u baahan tihiin inaad beddeshaan ma waxaad beddelaysaan marka kan calaamadan ugu horeysa waa kandhaladii baad bedeli kartaan kandhalada marka inta badan hadda sida uu yahay baa macaan laakiin haddaad doonaysid kalarkaa rabtid baa ka dhigi kartaa yacni midna waa boodigiisa waa jirkiisa midna waa wiigiisii so sida kalarka ay doonayaan inaad ka dhigatid laakiinse wixii sayla guduud inaad u daysatid baa wanaagsan wixii baayna sidaan uu yahay balse waxaa kaloo bedeli kartaa oo haddii aad doonaysid tusaale ahaan appearance baad ku dhufanaysaa muuqaalka waa waxaan idiin sharxayay muuqaalka backgroundkeena waa black waa white haddeertaan laakiin waxaanu ka dhigan karnaa black markaan ka dhigno waxaad u jeedaan inuu isla markii black markaanu ka dhigno waxaad arkaysaan isla markii in uu isbedelay laakiinse ay yeelatay xariiqamo kale oo layman kale oo yani isdaba marmaraya so si haddaad doonaysid black inaad ka wada dhigatid macnaheeda waxay tahay waa inaad xariiqimayaashaana aad black ka dhigtaa xariiqinta koowaad baan black ka dhigay tan ku xigtana black baan ka dhigayaa sidaas taas macnaheeda maxay tahay haddeertaan lacagtii waa wada black laakiinse chartka haddeertaan waa clean waan arki karnaa madow caddaan kalarkaa doonaysid baad ka dhiganaysaa dooqa adiga leh muhiimadda ugu weyn haddeertaan ma raba in aan mid usii galo maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan ood
markaas abrataan muhiim idin baan dul maraya so screenkan sidaas baad u bedeli kartaan sidoo kaleeto calaamadihii tan meeshaan uga soo gudubnay meeshaan waxa ku jira calaamadahan waxa jira dad markaasi iyagu istiraatiiji ay u tahay oo ku oranaya anigu lacagtan istiraatiijigaygu wuxuu ii sheegayaa sidan yani dad baa ku oranaya yani waxay rabaan yani ayaga ayaa soo saartay istiraatiijigan oo ku dabaqaya meeshaan yani waxay ogyihiin haddii meeshaan tagto meeshaan ay tagayso tan muhiimad idin ma sii lahan waxa muhiim idin leh oo meeshaan ku jira maxay tahay waxa idinku muhiimsan oo meeshaan ku jira waxa waxay tahay Fibonacci waxaad ku baran doontaan cashiradeena soo socdo Fibonacci-gana waa kana calaamadiisa meeshaan ku jirta yani kuwan kalena waa Fibonacci kala duwan laakiin Fibonacci retracement-ga ayaa cashirada yani waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay oo qofka markaasi inuu barto ay tahay isagana Fibonacci-gana sharaxaadiisa cashir gooniya maadaama ay tahay waxaanu eegaynaa kaliya idin tusaya kaliya meelaha ay ku jiraan halkan waxa ku jira calaamado kale calaamadahaas hadda waa midka uu anaga noo yahay hadda aan haysano waxaad dooran kartaan calaamadan afargeeska dad baa isticmaalo oo ku dhahaya aniga meesha aan line-kan isticmaali lahaa waxaan isticmaalayaa zone marka calaamada marna line bay dadka isticmaalaan marna zone ahaan bay u isticmaalaan yani lacagtuna line-ka ama way jibinaysaa oo fake break out bay samaynaysaa ama way tagaysaa laakiin markii aad zone samaysid zone-ka wuxuu kuu tilmaamayaa lacagtii yani zone-kan baad ka iibsanayaa oo kaleeto so calaamada ku xigtana muhiim idin ma si laha laakiinse waad sii galgali kartaan oo gacantiina ayaa la qabsanayso halkan waxaa ku jiro batanadaasna cashiro gooniya ku baranaysaan tusaale ahaan batanka koowaad yani waa mid 3 geesa waa mid yani dad baa isticmaalay head and shoulder yani waa istiraatiijiye iyagana jiro istiraatiijiyadaas iyo calaamadahaas batanada lacagta ay leedahayna cashirada dambe maadaama ku baranaysaan hadda waxaan idinka tusayaa kaliya hal tusaale sidoo taas macnaheedu maxay tahay lacagtan dad baa u isticmaalay sidan 3x waxay ku leeyihiin lacagta marka maadaama dii ay joogto waan self garaynaynaa bay jirto so yani batanada sida loo isticmaalo gadaal maadaama ka baran doon halkaas ay ka dooran kartaan kalarkiisana sidoo kale tina bedeshaad aragtaan asaga ku dhufanaysaan kadibna inta ka bedeli kartaan weynaantiisa yaraantiisa aan dhahay kalarka gudihiisa iyo leemankiisa line-kana waa kan gudihiina waana kan body so hadda kan bedelaysidba intaad ka bedeli kartaa meesha rabtid so head and shoulder asagana cashiradeen dambe ku baran doontaan yani hadeertaan maadaama wax iska waxaynayno yani head and shoulder ma soo baxayo maxaa yeelay muu haysto line-kii yani ma saxna laakiinse muhiimadda keliya isticmaalaysa waxay tahay in yani halkaas kala soo bixi kartaan halkan waxaa ku jiro calaamadihii waxaan filayaa shalay cashirka ahaa inaad ka barateen long iyo short qofka long hadduu rabo markuu lacagta cabirtuu yidhaahdo okay lacagtan long bay aadaysaa long hadday aadayso intayuu ku dhufanayaa wuu soo qaatay wuu soo keystay calaamadan gaduudka waa stop losskiisa meeshuu ka dhigan lahaa calaamadaasna waa meeshii targetkiisa haddii uu rabo inuu asxaab la wadaago sidaas ayuu ugu diri karaa sidoo kaleeto short waa lacagta marka inta joogtay baan iibinayaa baan leeyahay stop losskayga ama lacagteeda halkaas uga baxaya basic ayaa taasna kusii baranaysaan stop loss iyo wuxuu yahay taasi waa mid halkan waxaa ku jira calaamado yani aad garan kartaan adinka oo tusaale ahaan aad dhahaysaan okay lacagtan
oo mid qaldama soo qaaday mid sare okay laakiin wax walba waa macquul waa bedeli karnaa so calaamadan intay taabatay baa leedahay intay taabatay yani markaad ku muujinaysid ayaa halkan calaamadii aad ku muujinaysay hadda marka waxa jira wax bib la yiraahdo oo aad ku soo barateen ama aqoonteeda aad leediin ama basic aad ku baran doontaan bibka inta badan dadka nambaro dad baa jira nambaradii isku daraya kala jaraya haddaad doontid haddaad doonayna isku wareerisid inaad yani ka xafidid kor inaad kala jartid halkan baa ku dhufanaysaa waa meeshan waxaanu cabiraynaa marka meeshas baa ka cabir qaadanaysaa lacagta inta bib ay kor u kacayso waxaan filayaa qof bay su'aal qabo wax qoray right click okay cabdiqaadir cawaale aad baad u mahadsan tahay sidoo kale right click waa laga bedeli karaa buu idinku soo biiriyay aad baad u mahadsan tahay lacagta marka cabiristeeda baa halkan ku ogaan kartaa waxaan filayaa in qodob kale muhiim aan ka tagay yes qodobka kale muhiimka asagana waxay tahay in aad waqtigii bedeshaan maxaa yeelay adduunku isku waqti maahan aniga haddeertaan waqtigii maadaama aan aqoon cusub samaystay waqti qaldan buu ii sheegay hadda waqtigeyga waa kana waa 19:37 daqiiqo laakiin wuxuu ii sheegayaa 17:37 daqiiqo marka way fiican tahay candle-kaaga in uu la socdo saacadda meesha aad joogtid halkan baa ku dhufanaysaa waxa kuu soo baxayo saacadihii maadaama Soomaaliya iyo meelaha qaarkood aysan ku jirin يعني Soomaaliya waxaad fiirinaysaa wadankee ama magaaladee inta ku jirto ay isku saacad yihiin waxaan filayaa Sacuudiga inay isku saacad yihiin so Sacuudiga ku dhuftay 8dii iyo waxay soo baxday 38 daqiiqo saacadan waa saacada waxaan filayaa inay saacadaas intaas u tahay dadka Soomaaliya jooga so sorry marka wadanka joogtid baad geesanaysaa haddaad joogtid Denmark Copenhagen haddaad joogtid Oslo Paris Rome whatever aad joogtid baad geesanaysaa anigu maadaama aan joogo Germany haddii ku jirto Germany baan dooranayaa haddii ku jirina yani qasab ku jirto wadan weyn Berlin oo kale ku jirayso so haddii ku jirina wadan kale oo meesha ku jiro baan dooranayaa oo aan isku waqti nahay oo Berlin okay adinka laakiin sida u dooranaysa qofka Soomaaliya jooga waxaan filayaa inaan isagana u sheegay sidoo kale waxa jirta haddeertaan wixii waan tirtiray wixii haday meeshaan ii saarnaa laymankii waa tirtiray waa taa ogeedeen waxa rabay laakiin inuu clean noqdo haddii markaan tirtiro aan israahdo lacagta waxaan rabaa inaan dib u arko ha ka welwelin inta aad xiri haddaadan close garin wax oo dhan dib baad u celin kartaa adiga oo kan isticmaalayo back iyo forward-ka yani undo hadda waxaan dib u geenaynaa haddaan ku dhufto meeshii koo aan tagay ka imaaday oo aan tirtiray way dhici kartaa marmar inay gacanta kaga dhacdo sidaas daraadeedna ay sidaa ku noqoto so okay saacadaha baan hal mar idin dul maraya 2 daqiiqo si aad u fahantaan saacadaha tusaale ahaan month baki month marka geey billaha haday tahay tasmicneed maxay tahay bishan candle-keeda intaan u leeyahay bishan kalena candle-keeda intaan u leeyahay bishan kalena candle-keeda intaan u leeyahay yani candle waxa la yiraahdaa balkan meesha nooga muuqdo oo yani arki kartaan so candle-kan marka haddaan doonayo weekly inaan ka dhigo week-kan candle-kiisa sidaan u eegay week cusub ya week hore la soo dhaafay sidaan u eegay week-kan markaad analyze gareynayso way wanaagsan tahay higher time frame inaad soo qaadatid inta ka soo bedbedelatid ama monthly ka soo bilow ama weekly ka soo bilow midka aad doonaysid waxaan filayaa haddeertaan in aad wada fahanteen intaas waxaan u gudbayaa qaybaha su'aalaha anagoo soo isku dayn inaan su'aalihii soo koobno qofkii doonaya oo aan doonayn samaacadda inuu iska qaado kaleeto qoraal ahaan buu su'aasha usoo gudbin karaa waxaan maadaama screenka aan jaray si aan qoraal ahaantan halkaas uga aragno ma jirtaa qof su'aal ka qaba waxaan maanta aan sharaxnay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ واكو سلامي. سؤال شيء واحد تانية بروكرك مكو حيران كرا ميت تريد فورك بس ميت تريد فورك أنت وحكو أنا لا استكليها محل تريد فيو سوري تريد فيو كان أنت وحكو أنا لا اسكريستو أصدقي لعكتي ما كجلي كرايو سيل إيو باي مو بلي كرا. وسؤال aad wanaagsan وسؤال really aad wanaagsan waxaan isku dayaa inaan share gareeyo si aad kulligeen u fahantaan trading view-ga waxaa jira laba broker oo kaliya oo la shaqeeyo labadaas broker kaliya baa trading view-ga ku xiran kartaa oo halkan sell ya buy ka dhigi kartaa labadaas broker haddaa rabtiin inaad ogaatidna waxaad ku ogaan kartaa brokers markaad ku dhufatid trading view-ga tagtay broker baa ku dhufatay labadee broker buu la shaqeeyaa yani FXCM iyo WH and self invest labadan broker kaliya la shaqeeyaa marka waxa laga yaabaa in brokeradan aadan aqoonin ama aysan ahayn kuwii aad ku shaqeysanaysay marka su'aashaada haddii aan soo gaabiyo labadaas broker kaliya haddaad isticmaalaysid ba trading view-ga ku xiri kartaa haddii kalena broker kale ma ogol in lagu xiro laakiin su'aal aad wanaagsan bay ahayd ma jira qof kale su'aal ama soo qoray ama su'aal kala qaba welcome عشر كان فيديوهات من نصدر عشر كان